muddo ayaa wada socoteen wanaag badan baa ka wada hadasheen si wanaagsan aad ula dhaqantay saasoo ay tahane meel cidla ayuu kaaga tagay maxaa ka qaldan waxa laga yaabaa su'aalo badan inay maskaxdaada ku soo dhacayaan shakhsiyadaada xataa inay isdhehaysid arrin wax ka qaldan yihiin laga yaabaa inay isdhehaysid dabeecad xun ama leedahay ha shakinin videogan adaan kuugu talagalay haddii aad tahay haweeney Soomaaliyeed waxaan ku xasuusinayaa bulshada aad ka dhalatay 80% ama 90 waa bulsho cadaadis badanana cadaadiska waxay saaraan dhammaan maatada sida haweenka caruurta dadka waawalan iyo waliba dadka ka muuqaalka duwan waad maqashay gabar god hakaaga jirto ama guri hakaaga jirto taa micnaheedu waxa ay tahay inay dhibaato keenayso taa micnaheedu waxay tahay inaan lagu kalsooneen badanana waxa dhacda 80% familada Soomaaliyeed wiilasha ayaa guriga xuquuq ku leh wiilka marka uu soo barto gurigiisa uu ku soo barto inuu asiga hoggaan yahay badanaa bulshada waxay isticmaashaa inay wiilka kula taliyaan inuu keeno gabar asiga wax ka maqlayso ka dambaysa haddii aad maanta tahay gabar aqoon leh ama caqli leh ama karti leh doonaysa qof isfahmaan way adkaanaysaa marka qof asigu maskaxdiisu ay ku programsan tahay inuu helo qof asiga u hoggaansan sida aad isku fahmi lahaydeen waana tan sababta mararka qaar muddo markaa wada socotaan inay kala boodaan fikirro badan buu ku soo bandhigayaa waxa laga yaabaa fikradaasi inay ku cuntami weydo inaad maya tiraadid kadibna waxa u soo warmaysa inaad madax adag tahay marka dambana dib ayuu u qaadanayaa boorsooyinkiisa wuuna ka markuu tago waxa laga yaabaa maskaxdaada inay su'aalo badan ku soo dhacaan fikirtid murugootid hamurugoonan ayaan ku dhahayaa waayo shukaansiga micnihiisa ayaadan garanaynin shukaansiga micnihiisu wuxuu yahay aan wada hadalno aan isfahanno mustaqbalkeena aan ka fikirno wixii aan isku fahanno aynu ku dhaqanno haddii ay isfahmi weydaan taa micnaheedu waxay tahay laba wado inaad kala saaran tihiin wadadaada qofkii kuu qalmo uu imaanaya sugo dulqaadkana haddii aad maanta walaalka cadaadis kala kulmayso waxa laga yaabaa inay niyadaadu ku soo dhacdo bal guri aad madax u bannaan tahay raadso si aad culeyskan uga baxdid waxa laga yaabaa gurigaas aad ku ordaysid inaad culays kala kulantid waayo Soomaalidu waxa ay tiraahdaa war haween kaba isma dheero wiilka aad u ordaysid waxa laga yaabaa walaashiis inuu ku dhibaateynayo guriga uu kula nool yahay xuquuqdoodana lagu doorsiinayo inta ugu badan waxaan dhahayay familada Soomaaliyeed 70% 80% taa micnaheedu waxa ay tahay familada oo dhan ma aha marka sidee ku heli kartaa qof ay isku fikirtihiin badanaa waxaad ku dadaashaa qofkani fikirkiisa markuu soo bandhigayo markuu ugu horeysa fikradiisa oo dhan ha ku dadaalin inaad aqbashid waxa aad ku dadaashaa in fikir markuu ku soo bandhigo inaad fikir la mid ah bilowga keeni kartid laakiin haddii ay waqti qaadato waxa dhacaysa qofkii saa u dhageysanaysay marka dambe in fikradiisa aad ka soo horjeesay kadibna oo meel cidla kaaga tago meel cidla markuu uu kaaga tagana waxay saameyn ku yeelanaysaa maskaxda badanana waxa ku dadaashaa ama tala raac noqo ama tala keen si noloshu ay kuugu hagaagto haddii aad tala keen noqon taladiisana aad raacin way adkaanaysaa marka saad isku fahantaan وأنا قرشة ونكسر لي ما كرتد سي مستقبلك هو هجاجو فكرة أنا كل وذاجي ما دوني إنا كده بقدر نلاش هذا لكن واحد كده داشا إنه فكرة أدهي ستيت قفك أد نلاش اللي وذاجي دونتيني لقى يابي إنه كل فكرة يو إنه أديوكم معمول ده وحسكو شيء جدا يسكن حريص شدبا لبض وقف ويكات حيسا هسكو قلدين معمول يمسؤوليات مسؤوليته waa u dii kartaa laakiin wixii maamul la yiraahdo waa ka wada hadli kartaan waxna waa isku sheegi kartaan waana is dhageysan kartaan waxana ku xasuusinayaa mobilku laba sameecad ayuu leeyahay sameecad waxaad ka dhageysanaysid iyo sameecad aad ku hadlaysid sameecadan aad ku hadlaysid waxa loogu sameeyay qofka inuu ku fahmo haddii aan sameecadan loo sameyn lahayn macnaheedu waxay tahay kaliya adi in lagu soo hadlo si noloshaada ay horumar u gaarto mar walba waxaad ka fikirtaa fikir wanaagsan salaam calaykum